odayaasha waxgaradka ganacsatada culimadiinka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ayaa kulan xalay isugu yimaadeen ku cambaareeyay xarigii loo geystay Cabdikariin Muuse. kulankan oo ahaa mid badankiisa dawladda Soomaaliya looga codsanayay sidii uu soo deen lahayd qalbi dhagax oo la sheegay in qaar ka mid ah madaxda dawladda Soomaaliya u gacan gelisay dawladda Ethiopia xilli uu ku sugnaa magaalada Kalkacyo. jooga wadanka Koonfur Afrika halkan waxaan ku cabiraynaa raaligeena ku aadan ninka la yiraahdo qalbi dhagax dawladda Soomaaliya ku wareejisay Ethiopia ma ku saxan tahay mise way ku khaldan tahay waxaan ka hadlaynaa waxaan dhigaynaa dawladda Soomaaliya arrinta qalad ay samaysay oo si kas ah u dhacay waxaan ka doonaynaa marka dawladda Soomaaliya inay warcad ka soo saarto arrinkan ku aadan ninka haddaysan ka soo saarin waxay nala tahay inay cid loo turaya aysan jirin نسبة ayaan u qaadanaynaa ka jaaliyad ahaan arrinka waxaan u aragnay yahay mid aan la aqbali karin marnaba loogana fadhiyo dawladda inay ka bixiso jawaab cad oo ku habboon. aniga ah Cabdullaahi Dhagacade waxaan halkan tacsi ugu diraynaa ninkii aniga qalbi dhagax ma dhahayo qalbi Soomaali lannahu dadka Soomaalida meel ay joogaanba qalbigooda ruuxay ninkan diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa midna dambi kama gelin ruux Soomaaliyeed oo wadankiisa joogo ah hadduu dambi galay in wadankiisa loogu gooyo yahay laakiin in cadowgii raadinayay loo gacan geliyo waa nasiib darro. halkan xaflad maanan imaan تعسيبان ونمت ما أنت واحد تاجنته نقول له حية نقول إلى عليا واحد يدلنا أمني كمال نوجو شجع تعسيب صوت والله دقي دل يدلنا والله دقي قلبي كان كدقني تقول ده يده واحد شلي سان كقول لسه ماذا عم بينه هنلقوا قبل هنلقوا تلي لا هاي دولة الصومالية أرنتا عبدكريم شيخ موسى qalbi dhagax aan soo jeedinayna oo ka codsanayna inay ka hadlaan bulshadana ka qadiyaan wixii ka dhacay iyo sababtii ka liftay laakiin maxaa yeelay Cabdikariim waa nin Soomaali ah waa nin Muslim ah doo xataa la yiraahdo waa Ethiopian waa nin Ethiopian ah oo Soomaali Ethiopia de laba sharci oo ogolaanayso in cadawga gacanta loo geliyo waa mal horta islaamnimada ma ogolaanayso ko marka labaadna international looga ama waxyaabaha u yaala caalamka cid allaala cidii barnaamijka ka dambeysay aan la xisaabtamin oo aamus hawsha lagu sii daayay waa khalad ku sax waxaan markaa ku baaqaynaa in sida uu dhaqsaha badan ee dawladda go'aankeeda rasmiga hawsha ku aadan ay u cadayso in ninkaasi Soomaaliyeed shalay iyada dhiibtay sida uu dhaqsaha badan ay xatar xorriyadiisa u soo celiso waari awlaadiisi iyo ummadda Soomaaliyeed iyo usoo celiso iyada gorgortan jada ku gashay maantana iyada looga baahan yahay inay gorgortankii oo kale ku keento Soomaalidu waxay tiraahdaa rag aamusay iyo riya aamusay reerkooda gaba ficilkan uu dhacay runtii cid geysatay xakarna laba qodob kow in cidii falkan geysatay la ciqaabo labo in sida ugu dhaqsaha badan ninkaas xaaladiisa iyo meesha ay marayso bulshada loo sheego lana soo celiyo ma barbarayo runtii aniga waayo ninkaasi waxaad tirahdaan waxaan nahay dawlad ninka anagaa dhiibnay inkastoo dawladdu hadlin warku wuxuu u badan yahay in ay dawladdu dhiibto haddii aad dawlad tihiin oo aad maxay ahayd ummadda Soomaaliyeed matashaan in ninkaasi gurigiisa lagu soo celiyo oo maxay ahayd ummadda Soomaaliyeed wixii ay ka tabanaysa si barnaamijkan uu noqdo barnaamij wax qabad. Idris Sheekh Ahmed Gure Kalsan TV Koonfur Afrika.